taariikhda qaran walba waxay leedahay bogag ifaya iyo kuwa mugdi ah. Soomaaliya mid ka mid ah bogagga ugu murugada badan waa dhacdadii loo yaqiinay dilkii culimmadii Soomaaliyeed. Dhacda ilaa iyo maanta qalbiyada dad badan ku reebtay su'aalo aan weli si buuxda uga jawaabin. Haddaba maxaa dhab ahaan dhacay? Sidee ayay wax u dhaceen? Yaase ku lug lahaa? Si aan u fahanno dhacdadan, waa inaan ku noqonnaa dabayaaqadii sannaddii 1974 iyo bilowgii sannaddii 1975, xilli ay talada dalka haysay dowladdii kacaanka ee uu hogaaminayay madaxweyne Maxamed Siyaad Barre. dowladdu waxay ku dhisneed nidaam militari oo ku salaysan hanti wadaag cilmiyeysan, halkaas oo awoodda oo dhan ku urursaneed gacanta dowladda dhexe. Magacaygu waa Cabdulle Macalin Maalto, halkanina waa Hogan 24 Media. Haddaba haddii aad u aragteen muuqaalada noocan oo kale ah, aad wax ka faa'iidayso like saar si aan u ogaano tirada danaynaysa. Haddii ay tahay markii kuugu horreysay soo booqatay channelkeena, subscribe saar si aad u heshid muuqaalada cusub ee aan soo gelino. Share dheh si uu u gaaro muuqaalkan asxaabta jecel. xilligaas dowladdu waxay waday isbeddello waaweyn oo ay ku doonaysay inay ku casriyeyso bulshada Soomaaliyeed. mid ka mid ah isbeddelladaas wuxuu ahaa xeerka qoyska ee sannaddii 1975, kaasoo si gaar ah u taabtay arrimaha guurka, furiinka iyo dhaxalka. xeerkan wuxuu dhigayay in ragga iyo dumarka ay si siman u wadaagaan dhaxalka, taas oo ahayd arrin si toosa uga hor imaanaysay fahamka shareecada Islaamka iyo diinteenna suuban. maalinnimadii 12 January sannaddii 1975 ku beegnayd munaasabadda ciidda haweenka adduunka, ayaa madaxweynihii Jamhuuriyadda Soomaaliya Genaraal Maxamed Siyaad Barre khudbad uu ka jeediyey ku sheegay in golaha sare ee kacaanku uu go'aansaday taariikhda maanta laga bilaabo sinaanshaha ragga iyo dumarka dhan kasta. Isagoo hadalkiisa sii wata, wuxuu yidhi laga bilaabo maanta wixii ka dambeeya gabadhu waxay dhaxalka aabbaheed ka qaadanaysaa inta uu wiilka ka qaato. wuxuu intaas ku daray inaanu jirin wax la yidhaahdo nus, rubac iyo thuluth iyo wixii la mid ah oo xagga dhaxalka ah. waxaan idin sheegayaa in maanta uu gaaray golaha sare kacaanka inuu idin sheego in gabadha iyo wiilka Soomaaliya isku xaq yihiin, in dhaxalka ay kaga xaq yihiin. waxaa shiri jirtay haddii nin dhinto oo gabadh keliya ka tago, haawey aan waxba ugu jirin xoolaheeda inay boobaan. haddii taasu dhacdo, gabadha xoolihii aabbeedna ay koligeed leedahay, bay wax kale ay ka qaadayiin. waxaa shiri jirtay in maxaa la odhan jiray الربع والثلث والخامس والجنيه. ما يصير فتاكل هذا قصد ويشكل ويفحص ويكليه حقوقنا امرأة مجتمعة. أنا وارد فضاي كده حد عنا ويشتغل بدون إيمانك قبل بياح وما تطوال ده ما لك أغض بيشتغل. 13 January sannaddii 1975 ayaa go'aankii iyo xeerkii la socday waxaa lagu daabacay wargeyskii ku hadli jiray codka dowladdii kacaanka ahayd ee xidigta Oktoobar, oo ahaa jaraa'idka ugu afka dheeraa ee wakhtigaasi. culimo Soomaaliyeed oo caan ah kana tirsanaa masaajidda waaweyn ee Muqdisho ayaa si cad uga hor yimid xeerkan. waxay khudbado iyo dood cilmiyeed ku sheegeen in xeerku yahay mid ka hor imaanaya diinta Islaamka, isla markaana aan la aqbali karin. culimmadu ma aysan ku baaqin hub qaadasho, balse waxay adeegsadeen hadallo diini ah iyo waano. Sheekh Axmed Sheekh Maxamed oo ka mid ahaa culimmadii ka hor yimid go'aankaas ayaa isla maalinkaas ka bilaabay masaajidka Siigaale khudbado uu kaga soo horjeeda sharcigaas diin la'aanta ah ee Qur'aanka Kariimka nasakhaya. 3 maalmood oo xiriir ah ayuu masaajidka Siigaale ka jeedinayay khudbado ka soo horjeeda sharciga dowladdu soo saartay. maalintii ugu dambeysay ayaa imaamkii masaajidka u sheegay in khudbadahan ayna dowladda ogoleen ee uu joojiyo. maalinnimadii 17 January sannaddii 1975 oo ahayd Jimco ayuu Sheekh Axmed Sheekh Maxamed u soo wareegay masaajidka Sheekh Cabduqaadir, isagoo khudbaddii Jimcaha maalintaas akhriyey. sheekhu wuxuu gacanta bidix ku hayay wargeyskii xidigta Oktoobar ee ay ku qorneyd go'aanadaas, gacanta midigna wuxuu ku hayay kitaabka Qur'aanka Kariimka. waxayna khudbadda sheekhu socotay ilaa iyo la gaarayay salaadii casir, iyadoo dadkuna ay si xad dhaaf ah marba marka ka dambeysay u soo buuxinayeen gudaha iyo dibadda masaajidka. hase yeeshee dowladda kacaanka arrintaas si kale ayay u fasiratay. xukuumaddu waxay u aragtay mowqifka culimmada mid halis ku ah amniga qaranka, isla markaana lagu tilmaamay kicin dadweyne iyo qalqalgelin nidaam dowladeed. go'aankaas kadib waxaa bilowday xarig ballaaran oo lagu beegsaday culimo badan. intii ay khudbaddaas socotay, waxaa masaajidka xoog ku soo galay horimo ka tirsan ciidamadii dowladdaas, kana koobnaa militari, boolis iyo guulwadayaal iyo weliba nabad sugid. waxayna durbadiiba qabteen shiikhii khudbadda akhrinayay
iyo xubno kale oo fadhiyey safafka hore ee gudaha masaajidka. culimo kalena waxay ka soo qabteen masaajid kale oo shiikhii khudbadda akhrinaya uu yidhi kelmad keliya oo ahayd ilaahay kuwan sharkooda haynaga duwo. kelmaddaas oo shiikhaas iyo culimmadii la socotay galaaftay. intaas kadibna culimmadii la xiray waxaa loo taxaabay xabsiyada militariga, halkaas oo lagu waraystay laguna cadaadiyey inay ka laabtaan mowqifkooda. maalin kadib markii la qabtay culummada oo ku beegneed maalin sabti ah 18 bishii January sanadii 1975 waxaa culummadii la soo taagay maxkamaddii badbaadada iyadoo soo saartay xukun u dhigan sidaan. maxkamadda badbaadada qaranku waxay ku xukuntay 6 ka mid ah culummada ka hor timid xeerkii ay xukuumadda kacaanka ahayd soo saartay dil toogasho ah. waxaa kale oo ay xukuumaddu ku xukuntay 3 ka mid ah culummada 30 sano oo xarig ah, 2 kalena waxay ku xukuntay 20 sano oo xarig ah ayaa lagu yiri go'aan ka soo baxay maxkamaddii badbaadada qaranka Soomaaliyeed ee dowladdii kacaanka. maalinnimadii Axadda ee 19 January sanadii 1975 waxay maxkamaddii militariga soo saartay go'aan kale oo u dhignaa sidaan. maxkamaddu waxay ku xukuntay 4 ka mid ah culummada dil toogasho ah markii ay ka hor yimaadeen xeerka cusub iyagoo isku qarinaya hogga diinta Islaamka. 3 kalena waxay ku xukuntay 30 sano oo xarig ah, halka 15 kalena 20 sano oo xarig ah lagu xukumay. sidaas ayay culummadii la laayayna 10 ku noqdeen. subaxnimadii Khamiista oo ku beegnay 23 January sanadii 1975 ayaa idaacadda raadiyo Muqdisho laga sii daayay war argagax iyo caro ku beeray shacabkii Soomaaliyeed. inkastoo aysan wax fal ah oo ay kaga hortagaan arrintaasi ay waagaasi qaadeen, haddana qof kasta meel uu joogayba hoos u foorarsi ayuu bilaabay. warkii raadiyo Muqdisho sii daayay oo aad u koobnaa waxa uu qornaa sida tan. sida ay sheegayso wakaaladda wararka Soomaaliyeed ee Soona, waxaa saaka dil toogashaha lagu fuliyey 10 qof ee maxkamadda badbaadada qaranku ku xukuntay dilka, waxaana lagu toogtay oo dilkaasi lagu fuliyey garoon u dhow dugsiga booliska ee ku yaala xeebta badda. waxayna magacyada culummadii la toogtay kala yihiin: 1 Sheekh Axmed Sheekh Maxamed Xaaji Cusmaan, 2 Sheekh Axmed Iimaan, 3 Xasan Ciise Iley, 4 Sheekh Maxamed Siyaad Xirsi, 5 علي جامع حرسي، 6 علي حسن ورسمه، 7 ياسين علمي عول، 8 آذن علي حرسي، 9 سليمان جامع محمد، 10 شيخ موسى يوسف. sidoo kale wuxuu warku sheegay in maxkamadda badbaadada qaranku ay ku eedeysay dadkaasi la toogtay inay si wadajir ah uga hor yimaadeen xeerkii ay sida wadajirka isugu raaceen kana soo baxay golaha sare ee kacaanka iyo golaha wasiirada 11 January sanadii 1975 kaas oo ku saabsanaa sinaanta ragga iyo dumarka. waxayna maxkamaddu u cuskatay xeerka nambarkiisu yahay 12 qodobkiisa 54 ee soo baxay 10 bishii 9 ee sanadkii 1970. maxkamaddaasi ma ahayn mid furan, mana jirin qareenno madax bannaan oo si buuxda u difaacayay eedeysanayaasha. xukunku wuxuu ahaa mid degdeg ah, waxaana culimmada lagu eedeeyey dambiye ay ka mid ahaayeen ka hor imaansho amar dowladeed, faafin fikrado ka dhan ah dowladdii kacaanka, iyo kicin diimeed oo khatar ku ah qaranka. saamaynta dhacdadani waxay ahayd mid aad u culus. bulshada dhexdeeda waxaa ka dhashay cabsi iyo aamusnaan, gaar ahaan culummada kale iyo dadkii kale ee ka hadli jiray arrimaha diinta iyo siyaasadda. masaajidyo badan ayaa ka fogaaday dood kasta oo siyaasadeed, halka culummo badanna ay doorteen inay aamusaan ama dalka ka baxaan. dhacdadan waxay sidoo kale si weyn u dhaawacday kalsoonidii u dhaxaysay dowladda iyo shacabka, gaar ahaan dadka diinta ku adag. inkastoo dowladdu ku dooday inay ilaalinayso midnimada iyo xasiloonida qaranka, haddana dad badan waxay u arkeen dilkaasi xadgudubyo cad oo ka dhan ah diinta iyo xorriyadda fikirka. sanado kadib markii dowladdii kacaanka ay burburtay sanadii 1991, dhacdadan mar kale ayay soo shaacbaxday. qoysaskii culummada la dilay, culummo kale iyo taariikhyahanno badan ayaa ku tilmaamay dhacdadaas khalad taariikhi ah oo aan marnaba la hilmaami karin. su-aasha weli taagan ayaa ah, ma ahaa xukun sharci ah oo dowladdu ku difaacaysay nidaamkeeda, mise wuxuu ahaa caburin siyaasadeed oo lagu beegsanaya culummo diimeed? mana la dhihi karaa dowladdii kacaanka ahayd waxay sababsatay dilkii xaqdarada ahaa ee loo geystay culummada Soomaaliyeed? jawaabta su'aashaas waxay ku xiran tahay cidda aad weydiiso, laakiin hal arrin ayaa hubaal ah:
dilkii culummada Soomaaliyeed wuxuu noqday cashar xanuun badan oo muujinaya khatarta ka dhalata marka awoodda dowladeed iyo diintu ay si toos ah isugu dhacaan. Taariikhdu ma ahan oo keliya in la xuso, balse waa in wax laga barto. Dhacdadan waxayna xusuusinaysaa muhiimadda ay leedahay wadahadal, is-ixtiraam iyo in la ilaaliyo kala duwanaanshaha fikirka si uusan mar kale u dhicin bog madow oo la mid ah kii 1975 dhacay. Waxaa intaa noogu eg barnaamijkeennii oo aan soo gudbinaya anigoo Cabdulle Macalin Maalta.